والبسمة والعبرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan mar labaad iyo mar kaleba waxaad ku soo dhawaataan idil ahaantiinba barnaamijkii taxanaha ahaa qaybtiisii koowaad. maanta waxaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa qiso cajiib ah oo xiiso badan, ciwaankeeduna yahay hooyaday 40 sano qur'aan mooye wax kale ma aysan ku hadlaynin. qisada waxaa warinayo cabdullaahi ibnu mubaarak, caalimkii weynaa ee jaliilka ahaa. waxa uuna ku bilaabay sida soo socota: waxaan u baxay oo safar u galay xajka si aan u soo xajiyo una soo siyaarto masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam. aniga oo wadada ku sii jiro ayaan kula kulmay wadada haweeney qofna aan la socon. markaas ayaan ku idhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. iyaduna waxa ay igu jawaabtay aayad qur'aan ah oo waxa ay tiri salaamun qawlan min rabbir raxiim, oo macnaheedu yahay salaam allaha naxariista badan xaggiisa ka ahaatay, ahlu jannaha ayay u sugnaatay. oo aayado kale ayaa ka horeeyay, laakiin haweeneydu waxay kala jeeday radinta salaanta. markaas ayaan ku idhi allah ha kuu raxmadee, meeshaan cidlada ah maxaad ka suubinaysay? waxa ayna iigu jawaabtay aayad qur'aan ah oo waxa ay tidhi man yudlilillaahu falaa haadiya lah, ciddii eebbaweyna dhumiya cid hanuuni karta ma jirta. taa oo ay kala jeeday oo aan lunsanahay. cabdullaahi ibnu mubaarak ayaa yidhi waan fahmay oo waan gartay in wadada ay ka luntay. markaas ayaan ku idhi halkee doonaysay? waxa ayna iigu jawaabtay aayad qur'aan ah oo waxa ay tidhi subxaana aladii asraa bicabdihi laylan min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa. subxaana waxaa eeboo dhankana sahan alladii eebbaweynaha asraa dheelmiyey bicabdihi addoonkiisa laylan habeen min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsana uu dheelmiyey. waan fahmay oo waan gartay in ay soo xajisay, doonaysana in ay aado masjidul aqsa. waxa aana weydiiyey inta ay ku sugneed meesha aan ku soo gaaray. waxa ayna iigu jawaabtay aayad qur'aan ah oo waxa ay tidhi 3 layaalin sawiya, 3 habeen oo sisiman. markaas ayaan ku idhi iima muuqdaan wax raashin ah oo aad wadato, 3dan habeen maxaad cunaysay? waxa ayna iigu jawaabtay aayad qur'aan ah oo waxa ay tidhi huwa yudcimunii wayasqiin, huwa eebe yudcimunii asigaa i quudin, wayasqiin asagaana i waraabin. markaasaan ku idhi bisha lagu jiro ma aha bil ramadaan. waxa ayna iigu jawaabtay aayad qur'aan ah oo waxa ay tidhi waman tadawwaca khayra fa ina allaha shaakirun caliim. qofkii khayr siyaasadaa eebbaweyna waa mid shaakira oo caliimun xog og oo la socda. markaas ayaan ku idhi waxaa allah inoo baneeyey safarka in aan ku afurno. waxa ayna iigu jawaabtay aayad qur'aan ah oo waxa ay tidhi wa an tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun, inaad soontaan ayaa idiin khayr badan haddii aad tihiin kuwo wax og. markaas ayaan ku idhi biyihii aad ku weyse qaadanaysana mee oo aaween? waxa ayna iigu jawaabtay aayad qur'aan ah oo waxa ay tidhi falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan dayiba, haddii aadan helaynina biyo aad ku weyse qaadataan fatayamamuu saciidan dayiba, gabagabaysta carro wanaagsanna ku gabagabaysta. markaas ayaan weydiiyey sababta ay qur'aanka kaliya ay igula hadlayso. waxa ayna iigu jawaabtay aayad qur'aan ah oo waxa ay tidhi maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid, insaanku kuma hadlo oraah ilaa haddii uu ku hadlo raqiib iyo catiid agtooda uunbay ahaatay. markaas ayaan weydiiyey qolada ay ka soo jeedo. waxa ayna iigu jawaabtay aayad qur'aan ah oo waxa ay tidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina alsamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uula. ha isdul joojin wax aadan cilmi u lahayn, maxaa yeele maqalkaiyo aragga iyo laabta dhammaan aakhir wax waa liska weydiin. markaas ayaan ka cudur daartay oon ku idhi waan kuu gafay raalli noqo. waxa ayna iigu jawaabtay aayad qur'aan ah oo waxa ay tidhi laa tathriiba calaykum alyawma yakfiru allaahu lakum, wax canaana dushiina ma ahaanin maanta, allah ha idin dembi dhaafo. oo ay kala jeedo waan raalli waan kaa noqday.
markaas ayaan ku idhi ma iga oggolaanaysaa in aan kugu qaado hashayda si aan kaaga dabageeyo maxaarimtaadii waxa ayna iigu jawaabtay aayad qur'aan ah oo waxay tidhi wamaa tafcaluu min khayrin yaclamhu allah waxaad samaynaydaan oo khayr ah allah wuu og yahay oo ay kala jeedo hashaada haddaad igu qaado allah wuu la socdaa markaas ayaan hashii tujiyey si ay ii baraarujiso ayay akhrisay aayadatan qul lilmu'miniina yaqudduu min absaarihim mu'miniinta waxaa ku tira nabi maxamedow aragooda hal laabaanoo laaba saa ku dheh ayaa lagu yidhi nabi maxamed iyaduuse waxay kala jeedaa araggaaga laabo araggii ayaan laabtay oo waan ka jeestay waxaana ku idhi hasha kor markay damacday inay korto hashii ayaa booday iyadana waxaa ka jeexmay maradii ay xirneed waxa ayna akhrisay aayadatan وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم gabadhu waa gabar iimaan leh oo la socota wax waliba markaas ayaan ku idhi iska sabar ilaa aan ka xiro hasha waxa ayna iigu jawaabtay aayad qur'aan ah oo waxay tidhi fafhamnaaha sulaymaan ayaan garadsiinay iyaduuse waxay kala jeedaa hasha in la xiro waad ku saxan tahay hashii ayaan xiray markaas ayaan ku idhi hadda kor waan xiray hashiye markaas ayay kortay waxa ayna akhrisay markii gaadiidka la koro aayadda la akhristo oo waxay tidhi subxaana alladii sakhara lanaa haada wamaa kunna lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun markaas ayaan qabtay harigii hasha waxaana bilaabay inaan degdegayo oo aan tixayo gabayo markaas ayay igu dhahday waqsid fii mashik waqdul min sawtik socodkaaga dhexdhexaadso waqdud min sawtika codkaagana laab oo gaabi taa oo ay kala jeedo hadalkaaga yaray socodka degdegaana naga gaabi dabadeed waxa aan bilaabay in aan u socdo aayar tixano gabaya gaagaaban markaas ay igu dhahday faqra'uu maa tayassara min alqur'aan aqriya wixii idinkaaga fududaada qur'aanka baraarujin oo ay baraarujinayso inaan ku bedelo gabayga qur'aanka markaas ayaan ku dhahay waxa lagu siiyey khayr fara badan waxa ayna iigu jawaabtay wamaa yadakkaru ilaa ulul albaab mana kuwaan toomaan ilaa ulul albaab dadka caqliga u saaxiiba mooye ilaan aayadda hore oo ahayd waqad uutiya khayran kathiira waxaa ku xigay wamaa yadakkaru ilaa ulul albaab markaan wax yar soconnay ayaan weydiiyey sooj ma leedaa oo ma lagu qabaa waxa ayna iigu jawaabtay aayadatan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla nabi rumeeyeyo laa tas'aluu can ashyaa ha weydiinina ashyaa in tubda lakum tasu'kum haddii ay idiin muuqdaan idin xumaynaya oo haddii idin caddaadaan aad ku xumaanaysiin aayadda ay igu jawaabtay macnaha waa war sarbeeba waan ka aamusay oo maanan la hadlin ilaa aan ka gaarno meeshii aan doonaynay markii aan gaarnay safarleydii ay ku jireen maxaarimteeda ayaan weydiiyey yaa kuugu jiro waxa ayna iigu jawaabtay aayad qur'aan ah oo waxay tidhi almaalu waalbanuuna ziinatu alxayaati addunya markaas ayaan ogaaday carruurteeda in ay la socdaan dabadeed waxaan weydiiyey awlaadeeda waxa ay qabtaan oo ku kalifay xajka in ay soo aadaan waxa ayna iigu jawaabtay wacalaamaatin wabinnajmi hum yahtaduun calaamooyin iyo xidigo ay ku hanuunaan insaanku waxaan ogaaday in ay waddada tusiyaan dadka soo xajiyo waxaana damcay in aan aado safarleyda dhankooda waxa ayna igu tidhi واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما يا يحيى خذ الكتاب بقوة سدحداس آيات أي أخرسي مركز أيان قرتي وحانا أيري سدحدان مقع إبراهيم موسى يحيى وحا إماذي سدح ويل أردن يرأه مركي أنفرني مدير كذب هوينيدي أيا كتير ويلشي فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فابعثوا أحدكم لدرا أحدكم بوريقكم هذه لعكتان لدرا إلى المدينة مقالدا فلينظرها صوفي لي أيها أزكى طعاما دعامك كان حلاليسا فليأتكم برزق منه أنا نولي ماذا oo ay kala jeedo cunno u keena martidiina
waxaa baxay wiilashii mid ka mid a waxa uuna keenay cunno raashinkii ayaa la isiiyey waxa ayna tiri haweenaydii kuluu washrabuu hanii'an bima aslaftum fi alayaami alkhaaliya cuna oo caba si degan wixii aad hormarsateen maalmihii tegay oo ay kala jeedo cun raashinka abaalkii ah ay gashay maalmihii aan wadada ku soo soconay ama muddadii aan wadada ku soo soconay markaas ayaan weydiiyay wiilashii arinka hooyadood waxa ayna iigu jawaabeen 40 sano ma aynan ku hadlin hooyadeen qur'aan mooye subhanallah إبا أيام هدا إسكالي أو أود وحولبا وحن إلي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء تاوى ديرات إلهي بحيو عدو دون أيوب نسيا تاوى صح أو رن أو بين معها ولا القصة هدي أتكه شيء سبسكريب تسارو كمبالير كنفرو سيكوسو غارا مقالة ولبا أو أنصور لغو ما هتسن